magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Yuusuf ku magac dheer ahna dhiirigelin nololeed wax shaqo ma hayo wali waxaan ku jiraa tankii waxbarashada waxaan dhigtaa jaamacadda Bari Africa kulliyadda Public Administration sidoo kale waxaan diploma Computer Science ka qaatay jaamacadda Boosaaso sidoo kale waxaan diploma Procurement and Logistics Supply Chain Management ka qaatay jaamacadda PW barnaamijkan maanta inii wadno waxaan aaminsanahay inaad wax badan ka faa'iidi doontaan haddaba barnaamijku waxa weeye farqiga u dhaxeeya qofka nolosha ka fikira iyo qofka nolosha aan ka fikirin iyo farqiga u dhaxeeya qofka guuleystay iyo qofka aan guuleysan haddaba haddii aan ku hormaro farqiga u dhaxeeya qofka nolosha horumarka ka gaara iyo qofka kale waxa ay ku kala duwan yihiin aragtiyaha ay ka haystaan shakhsiyadooda qofka markuu shakhsiyadiisa aaminsan yahay oo ku kalsoon yahay naftiisana oo hanan karo ayaa waxa ay keentaa inuu su'aalaha naftiisa ay weydiinayso uu ka jawaabo kadibna aragtiyahaas uu u bedelo ficil dadku ma kala duwana laakiin iyaga ayaa waxay sameeyeen kala duwanaanshaha naftooda waxa arkaysaa qof ayaa guuleystay waa la leeyahay qofna waxa uu ka sheekeynaya qofka guuleystay sababaha uga sheekeynaya waxay tahay qofka guuleystay waxa uu ka fikirayay isweydiiyey su'aalaha naftiisa ay isweydiinayso oo ah waa maxay guul sidee lagu gaaraa guul mase la gaari karaa guul haddaba adiga waxaan kuu sheegayaa su'aalahaas naftaada haddii ay ku weydiinayso waxaa loo baahan yahay inaad ka jawaabtid farqi uma dhexeeyo qofka guuleystay iyo qofka aan guuleysan ilaa farqiga u dhexeeya waxa waaye waa ambitionka hadafka iyo ka rumaynta waxa uu rabo noloshan aan raadinayno farxadeedu ma timaado ilaa qofka uu la yimaado hami iyo qorshe iyo ficil iyo adkaysi kadib markaas ayaa waxa imaata nolosha guulaha aan ka arkayno iyo farxadda quruxda badan ee qof kasta ku naaloonayo ee uu jecel yahay inuu ka rumeeyo taas ayay imaataa laakiin haddii aadan hamiinayn fikirayn maskaxaadan aadan ka shaqaysiinayn waxaa ahaan doontaa ka mid noqon doontaa dadka followerka u ah qofka leaderka ee naftiisa isagoo horumarinaya ee mar kasta u helan una jecel inuu horumarka gaarsiiyo uuna noqdo qof tusaale u ah dadka taas ayaa waxay keentay inuu farqi idin dhexeeyo adiga iyo qofka guuleystay kunjibaar ayuu fakaraa inta adigu isaga ku mashquulsan tahay ee aad ka sheekeynaysay noloshiisa markastana wuxuu ku fikirayaa inuu horumariyo nafsadiisa sii horumariyo suu u noqdo qof nolosha baraare iyo qurux ku noolaada umana arka caqabaduhu inay yihiin qof isaga hor istaagi kara oo noloshiisa wax ka bedeli kara because wuxuu aaminsan yahay isagu inuu caqabadaha bedeli karo challenge-ga isagu bedeli karo naftiisana isagoo hanan karo haddaba adiga shakhsi ahaantaada fikir uu kugu jiray maxaa kuu diiday inaad fikirtay naftaada weydiisay qalam iyo buugna soo qaadatay aad qoratay tibaaxdi waxa adiga maskaxdaada ku jira naftaaduna ay ka jawaabto kadibna aad ka mid noqotay dadka guuleystay oo noloshooda baraaraha iyo farxadda raba inay gaarsiiyaan tusaalena u noqdo dadkan haddaba haddii aragtid taas inaad samaysay qaado waqti maskaxdaada meel degan adigoo qalin iyo buug qaadanaya kadibna qor fikirka goowaad oo maskaxdaada ku dhacaya kadibna u samee qorshe adiga oo ay kaa go'an tahay aysan kaa ahayn inaad tibaaxdi kadibna aad buugga meeshiisa dhigtay kadib isku day inaad ficil samaysay aad ku hananaysay guushaada markaas waxaan hubaa haddii samir iyo adkaysi aad ku dirtay inaad ahaan kartid qofka koowaad ee tusaalaha u noqda dadyowga adiga kugu hareeraysan ee adiga kula jooga kadibna waxaan hubaa inaad ka mid noqon kartid dadka beri followerka loo noqon doono oo ay dadku taageeri doonaan dadkuna tusaalaha ka dhigan doonaan aad baa u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa Halmal Media aad baa u mahadsan